inay shacabka difaacaan oo cadawga ka celiyaan in loo adeegsado 60 gaari oo tiknik ah hooyooyin iyo caruur guryahooda ku sugan ilmihii dugsiyada laga argagixiyo ee xabada lagu rido eelda ka soo baxa guryahan waa la duminaaye markii shacabka istaagay ee yaabeen ee naf mudeen inay isdifaacaan ay banaanbax sameeyaan markay intaas isku dayeen dhashiika loogu jawaabo dhashiika ilaahan idinku dhaariye shacabka haweenka dayni la joogo ma ciidamo furuma ku jiro miya waxaan aad u la yaabna haddana xalay waxaan arag macallin Mahdi shalay weerar oo sameeyay ciidan oo soo diray waxa la sameeyay in dadka la burburiyo dadka la xabadeeyo haddana waxa la sameeyay inuu xalay haddana xaqra dhiigi shacabka ilmihii yaryaraa ee la xasuuqay dhalinyaradii la xasuuqay isbitaalada ku jiro ICU-yada ku jiro ee dhaawacyada halista ah inuu yiraahdo cid ku dhaawacanta ma lehe dad wax bililqaysanay ahayn aad iyo aad waxaan uga xunnahay bililqa horta nagulama yaqaan anaga dad wax bililqaysta manihin alxamdulillah dad ilaahay isugu daray karaamo iyo waxaan ahmaal dad bililqa raadinayna manihin waxaan u taagnayna waa nafteena iyo maalkeena inaan difaacno habeenna waan u taaganahay maalinna waan u taaganahay madaxweynaha qaranku inta u dhiman waa madaxweynaheena madaxweyne waxaan ku leenahay adaana wadanka ka warhaynin yahuud iyo markii la yiraahdo Soomaaliland yahuud ay keentay war kuwaan shacabka gumaadaayo oo sidii yahuudi shacabka ula diriraayo maad wax ka qabatid maxkamadda gobolka Banaadir shuuto waxaan ku leenahay ma waxaad ka adagtaa dadka lagu keenay leh waa maqlaysaa TV-yada ka daawanaysaa haddii dawladu jirto dawladnimo haday jirto waxaan arki doonaa dhiiga wiilashi shalay la xasuuqay ee isbitaalada yaalo ee cadeyntoodii lahaayo waxaan arki doonaa dawlad ka jawaabdo haday dawladdu saas ahaynin yeysa dadka u been sheegin madaxweyne xasan oo intaad xasuuqi karto waad xasuuqday ra'iisul wasaare xamsow waxaan ku arki jirnaa adoo jilin film oo ka hor sameeynayo TV-yada oo in beena ma waxaad u oysaa jilin beena war dadka la xasuuqay ilaa ra'iisul wasaaroodii aan tahay maxaad uga hadli weysay dhiig daraad aargada yiilay kama hadlin xataa kama taxsiyeenin madaxweynuhu kama hadlin haddana saakay midkii oo yaalay Mahdi inta shalay dadka xasuuqay oo haddana wuxuu ku jawaabay warqad soo dhigay waxaan si aad ula yaabay oon aad uga yaqsoonaa oo ayaan dara TV-gi qaranka lahaan jiray ee hadda shakhsiyaadka leeyihiin ee soo qoray saddex qofood ku dhaawacantay qalalaasa ka dhacday war ilaahaadi ku dhaariye kaas TV maan dhigi karnaa TV qaran ma dhigi karno TV qaran maahan TV waliba qabiil dhigi ma karnaa shakhsiyaad iskale waxa oo soo qoro damiir xumada Mahdi iskale Mahdi loogu qoraa anigu taliyimaadin dhigi ma karo macallin Mahdina dhigi ma karo quraan ima barine aniga ma aqaan macallinka meesha looga keenay laakiin waxaan idin sheegaa Mahdi Umar Muumin xasuuq oo shalay geestay wuxuu isku daray xasuuq iyo xaqiraad oo isku daray waxaan leenahay war musharaxiinta samata bixintu waxay dhahan magaca samata bixinay la bixeen in indhaha laga fiirsado oo waa ka xunnahay TV lagu soo qoro ma rabnaa anaga waxaan rabnaa isla xisaabtan dhaba xildhibaanada kuweena bis uma dirayna baaqa xildhibaanada Soomaaliyeed oo dhan aan u diraynaa sababtoo Soomaaliya ay mas'uul ka yihiin dadka la xasuuqana waa Soomaali dadka shalay la xasuuqay walibana Soomaalida teegu qiimaha badneed waa dhalinyaro wadankuna 80% waa dhalinyaro la yiraahdaa dhalinyaradii shalay dhiigooda la bixiyay Soomaaliya isugu darsanayeen wali dadka deegaanka wada deganay ahaayeen annagu dariska kuma xad gudubno dariska ma dhibaateyno waliba hadalla xanaf leh walibana wuxuu yiri dukaanay bilaqaysanayeen aadan uga xunnahay dukaamada dariskeena annaga ixtiraamno wayna la degan yihiin xadgudubkaas iyo bililqana ma naqaano sharafkeenana ka weyn shalay geeridii dhacday iyo dhaawici dhacay dawladdu waxaan rabnaa jawaab cad inay ka bixiso haday jawaab cad ka bixi weysana waxaan dareemaynaa haday dawladdu tan jawaab cad ka bixi weyso meeshaas waxaan nooga cad qabiil in gumaad qabiil jiro ayaa halkaas nooga cad hadii dawladnimo looga jawaabi waayo
dowladnimo looga hadli waayo baarlamaanku ka fariisa waay dhiig shala baxay mahdi inta yiri dadka inta laaya haddana xal ku yaaqyaqsadee warqadaha oo soo dhigay haday dowladdu jawaab ka bixi wayso waxaan ogaanaynaa inaysan dowladnimo jirin mid kale waxaan arkaa maanta waxaan fiirsanayaa banaanbax culimada Soomaaliyeed ee isugu tagayaan haddaad culimada Soomaaliyeed tihiin dhiigga Soomaaliyeed ka hadli doontiin haddaad culimo qaas tihiin oo shakhsiyaad dana gooni loo adeegsadana waa arki doonaa shakhsiyaad u adeegaysiin haddaad culimo tihiin culimo dhiigga ka jawaaba dhalinyaradii shalay dhimatay dhaawacantay dhiigooda jawaabteeda waxaan ka sugaynaa dowladda Soomaaliyeed culimada Soomaaliyeed maxkamadaha qaranka oo ugu sareeyo maxkamadda qaranka Baasha Axmed Yuusuf waxaan ka rabnaa jawaab cad haddii jawaab laga bixi waayana madaxweynuhu leef u sheeg waxaad tiraahdaa waa leedin xasuuqa waxaad ka bedeli kartiin ka bedela dheh markaas annaguna waxaan isku difaaci karno waa isku difaacaynaa wabillahi tawfiiq inay shacabka difaacaan oo cadawga ka celiyaan in loo adeegsado 60 gaari oo tiknika ah hooyooyin iyo caruur guryahooda ku sugan ilmihii dugsiyada laga argagixiyo xabada lagu rido eelda ka soo baxay guryahan waa la duminaaye markii shacabka istaaga ee yaabeen naf mudeen inay isdifaacaan ay banaanbax sameeyaan markay intaas isku dayeen dhashiika loogu jawaabo dhashiika ilaahan idinku dhaariye shacabka haweenka dayni la joogo ma ciidamo furmo ku jiro miya waxaan aad u la yaabna haddana xalay waxaan arag macallin Mahdi shalay weerar oo sameeyay ciidan oo soo diray waxa la sameeyay in dadka la burburiyo dadka la xabadeeyo haddana waxa la sameeyay inuu xal haddana xaqra dhiigi shacabka ilmihii yaryaraa ee la xasuuqay dhalinyaradii la xasuuqay isbitaalada ku jiro ICU-yada ku jiro ee dhaawacyada halista ah inuu yiraahdo cid ku dhaawacanta ma lehe dad wax bililqaysanay ahayn aad iyo aad waxaan uga xunnahay bililqa horta nagulama yaqaan anaga dad wax bililqaysta manihin alxamdulillah dad ilaahay isugu daray karaamo iyo waxaan ahmaal dad bililqa raadinayna manihin waxaan u taagnayna waa nafteena iyo maalkeena inaan difaacno habeenna waan u taaganahay maalinna waan u taaganahay madaxweynaha qaranku inta u dhiman waa madaxweynaheena madaxweyne waxaan ku leenahay adaana wadanka ka warhaynin yahuud iyo markii la yiraahdo Soomaaliland yahuud ay keentay war kuwaan shacabka gumaadaayo oo sida yahuudi shacabka ula diriraayo maad wax ka qabatid maxkamadda gobolka Banaadir shuuto waxaan ku leenahay ma waxaad ka adagtaa dadka lagu keena leh waa maqlaysaa TV-yada ka daawanaysaa haddii dawladu jirto dawladnimo haday jirto waxaan arki doonaa dhiigga wiilashi shalay la xasuuqay ee isbitaalada yaalo ee cadeyntoodii lahaayo waxaan arki doonaa dawlad ka jawaabdo haday dawladdu saas ahaynin yeysa dadka u been sheegin madaxweyne xasan oo intaad xasuuqi karto waad xasuuqday ra'iisul wasaare xamsow waxaan ku arki jirnaa adoo jilin film oo ka hor sameeynayo TV-yada oo in beena ma waxaad u oysaa jilin beena war dadka la xasuuqay ilaa ra'iisul wasaaroodii aan tahay maxaad uga hadli weysay dhiig daraad aargada yiilay kama hadlin xataa kama taxsiyeenin madaxweynuhu kama hadlin haddana saakay midkii oo yaalay Mahdi inta shala dadka xasuuqay oo haddana wuxuu ku jawaabay warqad soo dhigay waxaan si aad ula yaabay oon aad uga yaqsoonaa oo ayaan darra ah TV-gi qaranka lahaan jiray ee hadda shakhsiyaadka leeyihiin ee soo qoray 3 qofood ku dhaawacantay qalalaasa ka dhacday war ilaahaadi ku dhaariye kaas TV maan dhigi karnaa TV qaran ma dhigi karno TV qaran maahan TV waliba qabiil dhima karnaa shakhsiyaad iskale waxa oo soo qoro damiir xumada Mahdi iskale Mahdi loogu qoraa anigu taliyimaadin dhima karo macallin Mahdina dhima karo quraan ima barine aniga ma aqaan macallinka meesha looga keenay laakiin waxaan idin sheegaa Mahdi Umar Muumin xasuuq oo shala geestay wuxuu isku daray xasuuq iyo xaqiraad oo isku daray waxaan leenahay war musharaxiinta samata bixintu waxay dhahan magaca samata bixin ay la bixeen in indhaha laga fiirsado oo waa ka xunnahay TV lagu soo qoro ma rabnaa anaga waxaan rabnaa isla xisaabtan dhaba xildhibaanada kuweena bis uma dirayna baaqa xildhibaanada Soomaaliyeed oo dhan aan u diraynaa sababtoo Soomaaliya ay mas'uul ka yihiin
dadka la xasuuqana waa Soomaali dadka shalay la xasuuqay walibana Soomaalida tiigu qiimaha badneed waa dhalinyaro wadankuna 80% waa dhalinyaro la yiraahdaa dhalinyaradii shalay dhiigooda la bixiyay Soomaaliya isugu darsanayeen wali dadka deegaanka wada degan ay ahaayeen annagu dariska kuma xad gudubno dariska ma dhibaatayno waliba hadalla xanaf leh walibana wuxuu yiri dukaanay bilaqaysanayeen aadan uga xunna dukaamada dariskeena annaga ixtiraamno wayna la degan yihiin xad gudubkaas iyo bilaqana ma naqaano sharafkeenana ka weyn shalay geeridii dhacday iyo dhaawici dhacay dawladdu waxaan rabnaa jawaab cad inay ka bixiso hadday jawaab cad ka bixi weysana waxaan dareemaynaa hadday dawladdu tan jawaab cad ka bixi weyso meeshaas waxaa nooga cad qabiil in gumaad qabiil jiro ayaa halkaas nooga cad haddii dawladnimo looga jawaabi waayo ee dawladnimo looga hadli waayo ee baarlamaanku ka fariisa waay dhiig shala baxay ee mahdi inta yiri dadka inta laayay hadana xal ku yaaqyaqsadee warqadaha oo soo dhigay haday dawladdu jawaab ka bixi weyso waxaan ogaanaynaa inaysan dawladnimo jirin mid kale waxaan arkaa maanta waxaan fiirsanayaa banaanbax culimada Soomaaliyeed ee isugu tagayaan haddaad culimada Soomaaliyeed tihiin dhiigga Soomaaliyeed ka hadli doontiin haddaad culimo qaas tihiin oo shakhsiyaad dana gooni loo adeegsadana waa arki doonaa shakhsiyaad u adeegaysiin haddaad culimo tihiin علماء ديك كجواب دليل شلي دمتي داوعنتي ديجود جوابته وحن كسوقينا الدولة الصوماليات علماء الصوماليات محكمة ده قرنك وأقصر محكمة قرنك باش أحمد يوسف وحن كرمنا جواب عد هدي جواب لقى بحواينا مدحوينا ولا فوشك وعاتري هذا والد حسوقة واحد كبدل كرتين كبدل ده مركز أنا قلنا واحد اسكت دفاعي كرنا واسكت دفاعنا وبالله التوفيق